insaanku dhibta tirada badan leh uma adkaysto ilaa iyaynu ilaahay xidhiidh dhab ah la leeyahay mooyaane. ساوغيت بوحا اللي يري يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا واذكر اسم ربك بكرة. أوكي إلهي وحلي كان استوضوب يوم كيسدد يوبا ليري كعو إلهي ستاك marka dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa? sida normalka bini'aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakaro asxaabtiisii ciddii xidhiidhka la lahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara. maalan problem dhaqaalaha kugu dhacay marka koowaad aad mushkiladda xalili karay waxaad soconaysaa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxa ku soo degdegaya midhadhkii xidhiidhkiinu uu fiicnaay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan aad tidhaahdo war bal waxyaamaahimo inaad wax ka weydiiya inaad wax ka heshaba waa suurtagal. qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaad ee uu raadiya waxa weeyaan rabu samaawaati walarda inuu xidhiidh la sameeyo.